waxaanu ku wareejinaynaa wasiirada dawladda waxaanu ku wareejinaynaa ra'iisul wasaaraha waxaanu codsanaynaa amnigayaga iyo xifdigayaga iyo wanaagayaga iyo nabadayada in dawladdu la wareegto waxa aan hayno oo hubana ay nagala wareegto wabilaahi tawfiiq annagoo hubkaas haysanaa dhibaato badan noo timi hubkaan marka waxaan isaga difaacaynay cid kasta oo cadow ahoo na soo hajoonta waxaan dawladda ugu wareejinaynaa dawladdu inay amnigayaga ay ballan qaado baan ugu wareejinaynaa ilaahay baa ballanqaadka leh gaadiidkan iyo ciidankii saarnaa waa 12 gaari oo noocyada kala gedisan oo hubka wata gaadiid fara badan oo aan qaran ma ahane munaasabana leh waxaan galabtay munaasabadan gaadiidkan iyo ciidan 500 askari ah ku wareejinaynaa ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed iyo wasiirka amniga iyo mudnaanta taliyaasha ciidamada iyo dhammaan qaranka qaybihiisa kala gedisan annagoo ah mas'uuliyiintii iyo wasiiradii degmada Xaraale iyo sanataradii iyo xildhibaanadoodii ku soo dhawaada ra'iisul wasaare iyo wafdigaaga halkan waxa igu soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug iyo sanatarkii aqalka sare waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo inay nagu soo wareejiyeen baabuurtaas ciidamada ah oo gaashaaman oo ilaa beebayaashu ay ku jiraan oo qoryo saaran yihiin oo ay yiraahdeen waxaan u soo milkiyeynay dawladda Soomaaliyeed iyaga iyo ciidankii saarnaaba dawladda Soomaaliyeedna ay ka gudoontay halkan on faraayo taliyaha xoogga inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diro dad una yimaado gawaaridan sidoo kale ciidanka halkan jooga in la qarameeyo la diiwaan geliyo tababarkii u baahan yihiin la siiyo magaaladan amnigeeda ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kala duwan ay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalaan amaanadan waxa idin imaan doona wafdi ka socda taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed inta uu ka imaanayaan waa ku simaysan laakiin halkan waxaan rabaa inaan fariin uga diro shacabka Soomaaliyeed aan raado waxa meeshan ka muuqda maanta waa tusaale ah dawladnimadii Soomaaliyeed oo hana qaaday tusaale mudan in talaabada walaalaha reer Xaraale ay qaadeen lagu daydo dawladuna ay ballan qaado inay dadka reer Xaraale oo soo hibeeyay hubkii ay haysteen dawladdu ay amnigooda ka shaqeyso dalkeenno dhami intaas kaliya raba dawladdu la aamino iyo dawladdu dadkeeda aamin u noqota hubka ay dawladdu hayso oo shacabka Soomaaliyeed lagu difaaco cadawgana looga difaaco iyo cid walba oo shacab oo hub haysa inay ogaato inaan shacab hub hay karin ee lagu soo wareejiyay dawladda federaalka Soomaaliyeed waxaan u soconay nabadeyn waxaan u soconay dib u dhis dawlad goboleedka Galmudug waxaan u soconay isu soo dhaweyn hadda waxaan ka nimid Huurshe waxaan joognaa Xaraale halkaasoo xurguf ay ka jirto oo aan rabno in aan xal degdeg ah u helno waliba intaan halkan joogno waa idinku ammaanayaa talaabada geesinimada la wada qaadeen waana tii xaqiijin lahayd